waxaad ka mid tihiin aasaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed saad og tihiin waxaan ku jirnaa dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aad iyo aad waxaan ugu faraxsannahay inaan haysanno ama aan helno wiilal dhalinyaro ah diyaar u noqday inay bixiyaan naftooda erdigooda sharafkooda inay dalkooda hooyo ugu bixiyaan si ay ugu difaacaan diintooda si ay ugu difaacaan dalkooda hooyo waa la socotaan dalka dhibaato badan ayaa ka jirto waxaan la dagaalamay dad isku dhaqan aan nahay oo muuqaalkeena leh oo urur al-shabaab la yiraahdo iyo Daesh waxaa idinkaga fadhiyaa ummadda Soomaaliyeed idinkaga fadhisaa inaad ka difaacdaan inaad ka xureysaan inaad sharafkii iyo karaamadii ummadda Soomaaliyeed aad soo celisaan ilaahay xamdigiisa waxaan ognahay inaad geesiyaal aad tihiin waxaan aad ugu faraxsannahay inaan ka dhalanayo ummadda Soomaaliyeed aan haysanno wiilal iyo gabdho oo dhammaantoodaba runtii geesiyaal ah waxaad muujiseen mas'uuliyad waxaad muujiseen aaminaad waxaad muujiseen runtii karti inaad dalkiina wax u soo barataan oo dibna ugu soo laabataan oo si dalkiina iyo dadkiina iyo diintiinaba aad u difaacdaan aad iyo aad idinkaga mahadcelinaya runtii taliyaha ayaa ka dhawaajiyey waajibaad cusub runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo runtii waqtigiisa ugu badan uu geliyey si uu dhisi lahaa ciidamada qalabka sida guud ahaan gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa sidoo kale aan rabaa inaan u mahadceliyo ra'iisul wasaare xasan cali khayre